Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij cusub oo aan ugu magac darnay ogaalka dunida. Barnaamijkan waxaad ka daawan doontaan channelka Wanaag Media. Waxaana kusoo qaadan doonaa waxyaabaha ka dhaca caalamka anagoo xooga saari doona arrimaha bulshada. Qaybtiisa koowaad waxaan kusoo qaadan doonaa gabar u dhalatay dalka Iran oo la sheegay inay muuqaalkeeda u bedeshay sidii ay ugu ekaan lahayd gabadha ka xamaalata shirkadda aflaanta ee Hollywoodka una dhalatay dalka Mareykanka ee Angelina Jolie. Sahar Tabar oo ah 22 jir ku dhalatay magaalada Tehran ee wadanka Iran ayaa la sheegay in ay dooneyso inay muuqaal ahaan u ekaato aktarada caanka ee Hollywoodka Angelina. Gabadhan dhalinyarada ah ayaa waxay martay 50 qalliin oo wajiga ah sida ay warinayso warbaahinta dalka Belgium. Sahar ayaa waxay caan ka noqotay baraha bulshada sida Facebook iyo Instagram waxayna heshay dhiirigelin badan iyadoo kuwa kalena ay ku dhaleeceeyeen muuqaalkeeda iyo ficilkan ay sameysay. Laakiin Sahar oo la hadashay warbaahinta Ruushka ee Outlook Sputnik ayaa waxay tiri xataa kuma fikiray inaan noqdo sida Jolie ama aan yeesho muuqaalkeeda oo kale. Waxayna cambaaraysay dadka dhaleeceeyay. Waxaa sidoo kale la soo warinayaa in miisaankeeda ka dhintay 40 kiilo muddo aad u kooban. Laakiin Sahar ayaa sheegtay in ay miisaankeeda dhintay balse ay tiri tirada aadka u badan ee la sheegayo ma dhimin waana been iyo kuturkuteen. Sawir laga soo bandhigay ayaa ku tusinaya sida muuqaalkeeda isku bedelay. Laakiin Sahar ayaa sheegtay in waxani yahay Photoshop iyo make-up. Iyadoo u waramaysa Sputnik ayaa waxay tiri waxaan waa Photoshop iyo make-up. Mar walba oo aan sawir la wadaagay asxaabtayda waxaan wajigayga ka dhigaa si qosol leh waana sida aan jeclahay in aan madadaaliyo taageerayaashayda. Taageerayaashaydana way ogyihiin in waxani uu yahay madadaalo oo aanu ahayn sawirkayga dhabta ah ama muuqaalkayga rasmiga ah. Ugu dambeyntii gabadhan reer Iran waxay beenisay in ay dooneyso inay u ekaato Angelina Jolie waxayna sheegtay in muuqaalada lagu soo bandhigayo baraha bulshada uuna ahayn wajigeeda dhabta ah oo waxay tiri waxani waa art iyo Photoshop. Si walba ha noqotee daawade waxaad ogaataa quruxda dhabta inay tahay mid Ilaahay ku siiyay waxaana lagaga baahan yahay in aad ku kalsoonaato.